وحجرد عقالية مدح دقمات وفتي اسكوكو جرا وهجامين مشرح اللبان عبدالرحمن محمد جامع Gaadhi Jiid ugu tartamaya doorashada golaha deegaanka ee degmada Cerigabo isla markaana ka sharaxan xusbiga u cudo oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar ku gaala bixinayay deegaanada gobolka Sanaag ayaa gaaray isla markaana si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada karin dhagax ku dhaceed hodanle buuq iyo ceelileed waxaana ay musharaxa iyo waftigii safarka ku wehelinayay ku horeeyeen deegaanka ceelileed halkaas oo ay kaga hor yimaadeen duleedka deegaanka taageerayaal tiro badan oo iskugu jira haween dhalinyaro waayeel qaybaha kala duwan ee bulshada wasaadaaleynay waasugeynay maanta abdi waa kaas horteena fadhiya dayax 15 mar lagu gudbaa la yiri wuxuu idin ka doonayaa reer ceelileed waa codka ma hayna ma siinaysan cad soo la siin maayo taa aniga ku hadlaya afkii reer ceelileed aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa waxaad kaga bedelantahay musharaxyada dadkaagii baad u timi hadal badan soo dhan bayno abdi maxamed jaamac codka ma siinayna dadku way isugu mid Abdiraxmaan codka waa la siinayaa insha Allah bismillaahi kariim Abdiraxmaan waa ku guuleysana insha Allah min ummaduna hadii aan laba ku rooyo beelaha uu ka dhashay iyo beelaha kale hadii aan laba ku rooyo ay raali ka yihiin oo warkiisu uu sida ku cad yahay sida ayaan ugu siinaynaa shuruud la'aan codka waana soo dhaweyseen waa sidaas oo hadii la yiraahdo oo habarta si fiican loo aslaago hadii aan ku raacaa fartii un baa hadhay fartana raaciya waa boqol iyo koow calaamado dadka reer ceelileed ee halkan ugu soo dhaweeyay waxaanu wadnaa uqaashi ay hogaaminaysaa abdi maxamed jaamac waa garanaysaa idinka naga badiya insha Allah waxaanu rajo ka qabnaa inaynu farteena ku soo saarno halkan waa ceelileed waxaanu idin wadnaa musharaxii golaha deegaanka Abdiraxmaan maxamed jaamac Abdiraxmaan waa soo xulay hadaan nahay beesha iyo deegaankaba idinkuna ma nala qaadateen awal baysaga oo shakhsiya ayuu sabafalka wadi oo runtii goobaha afaaf oo aad ugu daraa weliba waxaanu leenahay codkiina siiya sharafo bay tahay maanta in deegaanadeedii ee xudunta ahaa lagu soo dhaweeyo anigoo murashaxa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee cadaalada loo taagan yahay ee danahooda iyo dadku ay iga yimaadeen dantoodii oo dhan ii soo dhigeen aad baan idinkaga mahadnaqayaa waxaan murashax u ahay dhammaan deegaanada afaaf oo dhan iyo deegaanada ceerkaaba intay xukunto oo dhan aan qolo lahayn qabiilna lahayn ayaan murashax u ahay codkana ka doonaya كوبي صدق مي إن شاء الله تعالى بقول يكو يبلنتين وعبدالرحمن Gaadhi Jiid وقفل وقرانا intaasi kadibna wafdidani ayaa uga sii gudbay dhanka deegaanka karin dhagax ku dhaceed oo kamid ah deegaanada ay socdaalka ku marayeen waxaana halkaasi ay kala kulmeen soo dhaweyn ballaaran iyo ciyaaraha hidiyo dhaqanka oo wafdidani lagu maamuusay goobtan karin ku dhaceed baa la yiraahdaa xildhibaanka Abdiraxmaan maxamed jaamac oo dadku yaqaan abdi Gaadhi Jiid waan soo dhaweynaa إن شاء الله وحلينا حلبان إلهي كيف صار عليها كاريكو إن شاء الله وحنود عينينا إنه كي يقول السنقضه إن شاء الله إنه كي درك يدين تي وحب أنفع نقضه عدد دار لقى عقلي قبل حبوشية عمر وين مي وعارفري عمر وين ما كسر صارتها وفرتينا أي عبدي رضا وحنا رضا إلا توابوشية فرت عدكاسي وعدكي عبدي عدك الله بعد وحالي سجنا حلبانك جوها برلمانك علي الله نكل يراعو حلبانك يا عبدالرحمن شكرا عي وعبد يعلي وحالي هاي معننت عودك يقوي صدق مي هي حزب جوهي هي عدالة هي طريقك هي نمبرك بقول يكو أي نوب لنا ما أنا جو كهي الهاني كعرورة كرنسان أي أوتاجن ugu dambeyntiina musharaxa iyo wafdidani safarka ku galbinayay
ayaa u kici timay dhanka deegaan beereedka buuqo iyadoo kolkii uu musharaxu halkaasi soo gaadhay uu mid gacan qaaday taageerayaal tiro badan oo soo dhaweyntiisa u taagnaa kuwaasi oo caleemo cagaaran calanka xisbiga u cudiya lambarka codaynta ee musharaxa gacmaha ku sitay waxaana uu musharaxu halkaasi taageerayaashiisa kula ciyaaray ciyaaraha hidiya dhaqanka intaasi kadibna munaasabada loo qabtay wafdidani waayeelka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada deegaankani ayaa carabaabay inay codka iyo taageeradaba la barbar taagan yihiin musharaxani xildhibaanka la yiraahdo Abdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaamac weli nin yiraahdo Abdi waa nin wanaagsan weli waa nin xun والله عبد الرحمن وانين دغانكا فوقيد بو كترسن yahay waana nin deegaanka fuqad abaal weyn u haya waa soo dhaweynayna aad iyo aad baan soo dhaweynayna codkana waa siinayna musharaxa Abdiraxmaan Maxamuud Maxamed Jaamac waxaanu siinayna codka musharaxa uu soo baxay halka u yimi waa loola diyaar waana la siinaya haddaan nahay mujtamaca ballaaran buqeed waa siinayna codka maxay ahayd waxaanu siinayna codka yaga isaga oo ka sharxan gulaha deegaanka oo walaalkayo ahaa oo maxay ahayd meel nala joogay aniga oo ku hadlaya afka deegaanka buq waxaanu Abdiraxmaan mar koobaad iyo mar labaadba ku soo dhaweynayna gacmo furan xildhibaanka baanu wadnay Abdiraxmaan hadeerna wax yar baa idin haray oo codkii oo la siiyo balanteena waxa weeyaan 31 May iyo lambarka 101 waa nin isloo soo xulay oo reerku u soo xulay inuu isagu u noqdo musharax kaalintan u buuxiyo nin isagu tagay inaanu ka shaqaysto ma aha waatay shirkii halkaas ugu nimid qoladii heer buqaydo wataan yaba jeceshiin maanta iyaba dooran lahayd xildhibaan waanu haysanaa baana tiraadaan hadaan la dooranaysaa oo kuma waa Abdi Gaadhi sida u gacan qabateen ugu soo baxdeen waa filaynay sidaa ku wadaanu leenahay u diyaargarowbaanu leenahay dhammaan dadweynaha sharafta leh ee deegaanka buuq waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee deegaanka buuq iyo inta ay xukuntoba iyo cudud baan ka doonayaa maanta fartiisa ayaa nin walba ka doonayaa warsamkaaf Cabdirashiid aadan goobjoog TV Ergaabo